السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض داود يا لدي لهانتين بكون سو دوادا مركله iyo barnaamijkeeni ciyaaraha oo toddobaadkani marti inoogu yahay gudoomiyaha kooxda heerka koobaad ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland gudoomiye Kamaal Maxamed Yuusuf. Kamaal ku soo dhaw True Cable TV. aad baa maasantiin Cabdiqadar iyo dhammaan shaqaalaha True Cable TV aad baa maasantiin oo dhawey. gudoomiye aad baan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga ah. daawad yaal toddobaadkani waxaynu barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa oo aynu ku falanqeyn doonaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland dhawaan waxa uu shaaciyay in ay diyaarinayaan xulka qaranka Soomaaliland oo darajada ugu horeysa la dooran doono tababaraha xulka qaranka Soomaaliland iyadoo loo saaray guddi uu horkacayo ciyaaryahan hore Farxaan Booq. gudoomiye waxaynu toddobaadkani daawadayaasha la wadaagi doonaa arrintan toddobaadkan sida weyn uga dhex guuxaysay caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan gobolada dalka arrinta xulka qaranka adoorta seed u aragtaa marka hore. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ugu horeyn ilaahay u mahad leh shaqaalaha True Cable qaybta sportska oo Cabdiqadar iyo kamaramaanada ay hogaaminayaan aad baad ugu mahadnaqayaa martiqaadka ugu martiqaadeen barnaamijka ciyaaraha su'aasha hadda ku soo dhawaado jawaabteeda kullay wadan kastaaba inuu xul qaran yeesho waa muhiim ama wadanka hal ixtiraafo ama yaan ixtiraafin marka in la yiraahdo xulkii qaranka ayaanu ku dhawaaqaynaa ama aynu magacaabaynaa tababarihii xulka qaranka way fiican tahay waan soo dhaweynaynaa inkasto oo ay u baahan tahay jaranjarooyinka kala duwan ee la marayo in laga horeysiyo marka waan soo dhaweynaynaa guud ahaan waa tahay waxaynu si toos ah u gudagali doonaa barnaamijkeena arrintan iminka ay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland shaaciyeen waa doorashada tababaraha xulka qaranka Soomaaliland waxa loo saaray guddi ka aragtidaada iyo fikirkaaga sharciyan horta ma tahay in guddi ay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland u magacaabaan doorashada tababaraha xulka qaranka Soomaaliland horta walaal wata koowaade marka koowaad anigoo guddida iyo xiriirka kubadda cagta waa sharaf weyn u haya marka koowaad waxay ahayd in tababaraha xulka qaranka cidda magacaabaysa waxa xaq u lahaa xiriirka kubadda cagta oo hogaaminaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka marka kullay anigoo u arkaya ama dareemi karaya inay ka ordayaan ama ay iska ilaalinayaan inay eed ku soo noqoto ayay yidhahdeen guddi madax bannaan ayaan u magacawnay kullay guddida xubnaha laba nin baan aada u garanayaa maxamed xato oo ciyaartooyda waddanka soo maray ahaa oo nin akhyaara iyo saaxiibkay Farxaan Booq labada ninba waa laba nin oo guddida loo magacaabay iyo meelo ka sareeya u qalma kalsooni badanna lagu qabi karayo laakiin sharciyo waxa xaq u lahaa inay magacaabaan xiriirka kubadda cagta marka saan hore kugu sheegay eedka orod ayuunba horta nimanka culeys loo saaray igana ilaahay hawsha u dhab yareeyo si fiican waa tahay horyaalka heerka koobaad ee wadanka waad la socotaa si guud tababaraha xulka qaranka goboladii dalka oo dhan baa iska wada eegaya weli inkastoo aynan ka hor dhici doonin oo ay guddida loo magacaabay inay soo magacaabaan xulka qaranka Soomaaliland ay sharci u soo saarayaan ay tababaraha ku qaadanayaan marka aragtidaada eegto maanta yaa noqon karaa isleedahay tababaraha xulka qaranka Soomaaliland tababara nooceeye inagoon shakhsiyan qof eegaynin tababara nooceeye noqon kara iyo anigu waxa laga yaabaa Kamaal ahaan haddaan fikirkayga cabiro inaan dad fara badan fikir ahaan aanu kala duwanahay oo suurtagal sidaa darteed tababaraha xulka qaranka Soomaaliland waxa la rabaa inuu haado tababare ay iska dhex arki karayaan dhammaan gobolada Soomaaliland tartankii u dambeeyay ee gobolada Soomaaliland waxa loo qabtay 12 gobol in 14 gobol lahaa ayaan jeclay 14 gobol marka tartamo laga qabto ee la ogaado ciyaartooyda gobolada ciyaartay ee la ogaado tababarayaasha kooxaha hogaaminayay ayaa horta tallaabo la qaadi karaa la oran karaa xul qaranna waa la sameeyay tababarana waa la magacaabay 14 gobol 3 gobol ayaa ilaa imika la hayaa in tartamo laga qabtay waa Hargeysa iyo Berbera iyo Burco 11 gobol baan waxba laga qaban oo qorshaha ay ugu jirtaa xiriirka kubadda cagtu inay tartamo ka qabtaan
markaa horta ilaa iyo 14 gobol la simo oo tartamadaasi laga soo gabagabeeyo tababarana lama magacaabi karayo xul qaranna lama magacaabi karayo waayo xulka qaranku dee Hargeysa oo kaliya lagama xulayo tababaraha xulka qaranka Hargeysa oo kaliya lagama xulayo waxay noqonaysaa Somaliland koornay la koornay qof kasta oo han leh tababare iyo ciyaartooy kasta oo han leh inuu xulka qaranka ku biiro in la soo xulo waliba taa mid baa aniga iga sii muhiimsan ina tababaraha xulka Somaliland anigu fikriyan waxaan aaminsanahay in laga badaayo dalka in ninka tababara ka noqonaya xulka Somaliland in wadamada jaarka sida Ethiopia kale Kenya kale Djibouti kale qof ciyaartooydan wax ku soo kordhin karaya in la keeno anigu waxaan aaminsanahay tababarayaasha waddanka jooga maanta ee kooxaha gacanta ku haya anigu ma sheegi karayo kuwa aan gacanta ku hayn intooda badani wax isdhamaami jirto waxaana ku cadeynaysaa tartanka horyaalka Hargeysa ka socda tobanka kooxood ka ciyaaraya intooda badani ma kala awood sareeyaan waxay ku kala badiyaan waa hal iyo eber iyo laba iyo hal iyo baraajo kooxda u sareysa iyo kooxda u hooseysa iyo kooxaha u sareeya way adag tahay si kala badiyaan marka anigoo aaminsan inay macallimiin ay yihiin sharaf leh oo wanaagsan haddana tababare xulka qaranka Somaliland wax ku soo kordhiya in dibadda laga keenaa waa ayaa aniga aad ila wanaagsan lahay oo tababarahaasi laba arrimoodba dib u noqonaya wata koowaad wuxuu dib ugu noqonayaa in uu ciyaartooyda la xulayo uu xulo si cadaalad waayo nin tababara ah oo wata koox heer koowaad marka la yiraahdo tababare ka noqon xulka qaranka sidii dhici jirtay wuxuu u badinayaa kooxdiisa tusaalaan ku siinay anigu gudoomiyaha maaliyadda Hargeysa haddii la yiraahdo Kamaalo waxaad noqotaa tababaraha xulka Somaliland maaliyadda ka buuxinaya anigoo hindi haysta ama ahmi badeeca haysta ama si ilmiisa haysta ama bahdoon haysta cid kale uma yeerayo oo kaygan markasta aan muhiimadda siinaya dadka kale way la mid oo qof kastaaba waxa weeyaan kooxda uu gacanta ku hayo ayuu muhiimadda siinaya waxaan u soconaana waa xul qaran weeyaan maadaama xul qaran aynu haysano aynu magacaabayno oo la xulayo tababaruhu laba arrimood dabuwi inuu noqdo tababare ajaaniba wata koowaad ciyaartooyda wuxuu xulayaa si cadaalad oo Somaliland oo dhan tartamada ka socda intuu u daawasho tago ayuu ciyaartooygu ku qanco kubadiisa iyo akhlaaqdiisa ayuu xulanaya cid ka hadli kartaa ma jirto waa talabaade wuxuu dawo u yahay ama waxtar u yahay in ciyaartooydii dhowr iyo 10 sano u dambeeyay tababare kaliya hortaagna inuu helo khibrad dibadeed oo ciyaartooygani ka faa'iido macalinka dibadda ka imanaya marka gudida waxaan kula talan lahaa tababaraha ay xulayaan hadday dalka ka xulayaan inuu noqdo tababare ka madax bannaan kooxaha iminka kubadda ciyaaraya ama tartamada ciyaaraya hadduu soo sharaxayo waa inuu iscasilaa oo ka tagaa kooxda uu gacanta ku hayo haddii aan intaa sameeynin gudidu tababare ajaaniba oo inamada wax tara inay keenaan baa muhiim ah waa tahay weli gudideen ku sii dhex jiri doonaa iyo kala doorashada ay ku kala xulan karaan tababaraha xulka qaranka Somaliland oo si weyn looga hadalhayo caasimadda Hargeysa gudoomiye arrin baa la isla wada lagu kala fikir duwanaan karaa jira gudidu go'aan nooceeya ama go'aan intee leeg bay ku kala dooran karaan tababare xul qaran tusaale ahaan haddii ay leeyihiin Kamaal oo kale waa tababaraha xulka qaranka Somaliland sidee looga soo dhaweyn karaa islaada dalka anigu sidaan hore Cabdiqaadir waa kugu sheegay tababaraha ay magacaabayaan ay dooranayaan hadduu noqdo tababare ka madax bannaan kooxaha heerka koowaad ee waddanka ama gaar ahaan caasimadda oo aan koox gacan ku hayn kooxaha iyo ciyaartooydu soo dhaweynaya laakiin hadduu noqdo nin tababare ah oo koox gacanta ku haya kooxdiina aan ka tegin cidda koowaad ee ka hor imanaysa anaga kowka
laakiin maxaad ugu diidaysaa haddii uu shuruudihii buuxiyo muwaadin yahay xaq u leeyahay inuu booskani u tartami karo helayna booskii dee horta waxaad diideysaa sidaan hadalka marka hore ku daray inanka ciyaartooyga ah ee reer Somaliland wuxuu xaq u leeyahay inuu helo tababare si cadaalad wax ku xula inaga muhiimadeena waxa weeyaan inaan ciyaartooyda Somaliland aan laga dhigin 4.5 oo aan hab dee inaan fahmaynin loo soo xulo inanka ciyaartooygu maadaama uu doonayo inuu cadaalad helo way adkaanaysaa in tababare koox gacanta ku haya inuu ciyaartooy si cadaalad ku soo xulo waa adkaanaysaa tusaale waxaa kugu filan koobkii gobolada u dambeeyay Somaliland gobolku doonaba ha noqdo magaalo aan laga cabanaynin way yaray tababare kasta oo gobol watay ciyaartooyda gobolka uu mas'uulka ka yahay wuxuu u badinayay kooxda marka gacanta ku hayo dabata meeshii maxaa ka baxaya ciyaartooy dhan oo laacibiina oo hibadii ilaahay siiyay soo bandhigi lahaa ayaa meesha ka baxaya laakiin marka nin tababare ah oo madax bannaan uu wax xulayo ama ajaanib ha ahaado ama dalka gudihiisa ha ahaadee inanku haddii macal laga tago isagoo qanacsan ayaa laga tegay marka ninka muwaadinka ah ee shuruudaha buuxinaya shuruudda koowaad ha ka dhigaan inuu ahaado tababare ka madax bannaan kooxaha imika ciyaara marka kooxaha imika ciyaara markaad leedahay ma Hargeysa kaliyaad ka hadlaysaa mise ilaa goboladii ba ku jiray Somaliland goboladu waxyaabaha ka cawdaan waxa kamid ah kubadda Hargeysa ku soo urtirada marka maadaama Somaliland xiriirka kubadda cagta Somaliland ba dooratay wasaaradda ciyaaruhu waxay wasaaraddu tahay waa Somaliland tababaruhu hadduu doono Bremba ka yimaado Saylac ka yimaado meesha doonaha ka yimaado laakiin tababarahaasi hadduu ka imanayo Saylac ama hadduu Laascaanood ka imanayo waa inaanu kooxaha ka jira Saylac ama kooxaha Laascaanood ka jira koox kamid ah waa inaanu gacanta ku hayn hadduu ku hayana haddii xulka qaranka uu soo baxayo waa inuu kooxda wareejiyaa si ciyaartooydii kale ay cadaalad u helaan laakiin maxay macna sameynaysaa tababare heerka koobaad oo tusaale ahaan aan tusaale fudud ba ku soo qaato heerka koobaad gudoomiye Kamaal baa laga dhigay oo ku guuleystay inuu soo noqdo tababare xulka qaranka Somaliland waxa tiri waan iska casilay booskii tababare ha wasaaradda maaliyadda still ciyaartooyadaadii waa soo xulan karaysaa sad horeba uga dhawaajisay marka maxay ku kala duwan yihiin fikirkaagii waxay ku kala duwan yihiin ninka la magacaabayo ee tusaale ahaan tusaalaha soo qaatay koox ka aha macalinka aha marka uu miidiyaha ka sheego waan iska casilay kooxdeedii koox Hiblaayo isla markaana la arko in kooxdii uu iska casilay loo magacaabay tababare ninkii tababaraha markuu banaanka u baxo sabab uu kooxdiisa ugu noqdo koox ay cid kale la wareegtay sabab uu ugu noqda ma jirto tababarahan horta waxa ku kalifaysa inuu kooxdiisa u badiyaa ta ugu muhiimsan markaynu dee in magaaladii wala wada joogaa oo meel baa dadku ay inta badan ay wada joogaan inta ugu badan ee tababaruhu wuxuu ka cabsoonaya ama uu iska ilaalinaya kooxdiisii markuu hadhow ku soo noqdo in eedi kaga timaado ama kacdoon kaga yimaado ciyaartooydiisii oo la yiraahdo annagoo joogna ayuu hebel iyo hebel oo koox Hiblaayo naga doorbiday ta ugu muhiimsan ee tababaruhu ka ordaya wayna dhacday in rag laacibiina oo la garanayo oo hebel iyo hebel loo garanayo inta laga tagay inay gobol kale gobolku doonam ha noqday inay ka faa'iideystaan marka ninka tababarihii wax kale kama baqayaba wuxuu ka baqayaa in kooxdiisa kacdoon kaga kaco oo la yiraahdo ninkii macalinka ahaa ee koox Hiblaayo watay isagoo hebel iyo hebel haysta ayuu wuxuu doorbiday hebel iyo hebel kale oo koox Hiblaayo laakiin markuu banaanka u baxo ilaahay uu ka baqaya inna ka baqayo waa tahay iyadoo qudheed dood kala imanaysa hadiiba lagu guuleysto in tababaraha xulka qaranka la magacaabo ciduu doona ha noqdo gudideenu ka warsugi doona anaga daawadayaashu ciday noo soo bandhigaan ama media la wadaagaan waxa iman doonta oo dood kale ay ka abuurmi doonta xulashada ciyaartooyada xulka qaranka Somaliland xulashada adiga fikirkaaga ka Kamaal ahaan ma waxaad qabtaa in ciyaartooyada xulka qaranka Somaliland laga wada xulo dalka gobolku doonaha ka yimaado mise in fursad loo siiyo sida ay dalalka kala sameeyaan ciyaartooyada
ka ciyaara horyaalada kala duwan ee dibadda ama ha noqdaanba divishanadaba niyo anigu fikir ahaan inta badan waxaan aaminsanahay ciyaartooyda reer Somaliland ee dibadda ka ciyaara wadamada dibadda ka ciyaara kooxda doonaha ciyaaraan ama magac ay doonaan bahasitaan iyaga oo haysta jaanis fara badan oo dalka dibadiisa ay ku ciyaarayaan ciyaartooyda wadanka jooga maxay u taraan waxa uma taraan tiriis kama caawiyaan seminar ma siiyaan wax allaala waxay ugu filayeen ma jirto naftooda iyo halkii joogaan u baydee ay ka fuliyaan marka haddii jaaniskaasi soo baxo in xul qaran la magacaabo oo la sameeyo in dalka ciyaartooyda joogta ee bilaa tababarka iyo bilaa seminaarka iyo waxa weeyaan dhaqaale yaraanta usoo samrayay in ayaga laga xulo dalka gudihiisa fikirkaas anigu waan taageerayaa aaminsanahayna markaasoo doodiina iman mayso uniyo kala jiidashada ciyaartooyadu dalka gudihiisa dee hadduu tababaruhu horta sidaan kuu sheegay noqdo tababare madax bannaan oon cidba ka soo jeedin oon koox dibadda ku haynin xabadood ma imanayso oo ninkani waa nin madax bannaan waxaa iman karta qofka dee marka xil loo magacaabayo xilka tababaraha xulka Somaliland waa boos sare weeyaan qof loo magacaabayo meel yaro hoose ayaa la dhaariyaade oo la yiraahdaa inaad si cadaalad aad ku wada soo dhaaro ninka xul dhan magacaabaya ee 30 inan oo kala mabda'a oo kala kubada oo kala mowqifa meel isku keenaya inuu cadaalad ku soo xulana kaliya hadii macarsi kale lagu aamini waayo dhaartayda lagu aaminay waa tahay gudoomiye waxaynu dhinaca kalena eegi doonaa inagoo ku guda jirnay wali barnaamijkeena aynu ku faaqidayno ama aynu kolba dhinac uga eegayno aragtida ay xiriirka kubadda cagta Somaliland markii ugu horeysay taariikhda soo bandhigeen ee ah xulka qaranka Somaliland sidoo kale isla waxa taariikhda Somaliland markii ugu horeysay si taxana uga socda Hargeysa Stadium horyaalada kala duwan ee dalka kooxdaaduna waxay kamid tahay kooxaha ka qayb galaya horyaalka heerka koobaad horta horyaalka waa dhamaad 3 kulan baa hadhay ka gudoomiyahan sidoo aragtay ilaa hadda horyaalku soo socdo waa su'aal wanaagsan weeye horta in dalka 15 sano kadib in laga qabto horyaal cid kasta way soo dhaweynaysaa waan ku faraxsanahay dadkii in tartankaasi bilaamo ka shaqeeyna dadkii ugu horeeyay baan kamid ahaa marka xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda aad baan horta ugu hambalyeynaya waan soo dhaweynayaa si fiican ugu socdaa kullee wax kasta oo la qabtaa wanaagna uu yeeshaa dhaliilna uu yeeshaa marka wax la qabto ay dhaliil soo baxda haddaan waxba la qabanin dhaliil ma timaado marka wax wanaagsan baa la qabtay oo ilaa imika 3 tartan A iyo B iyo C iyo koobka xiriirka ay isdhex wadaan dhaliilo fara badan way jiraan oo mid sharciya oo dhinaca sharciga ah iyo waxa weeyaan mid dhinaca maamulka ahba way jiraan oo soo baxayaan kuwana waxaan rabnaa inaynu qaladaadkii hore ka faa'iideysano oo dhinacii sharcigana dib loogu noqdo dhinaca maamulka iyo waxa weeyaan hab socodka xafiisadana dib loogu noqdo haddii baad carabowday inay dhaliilo jiraan annagii daawadayaasha minalowda ay kartaa dhaliilahaad is leedahay sixitaan bay u baahan yihiin oo xiriirka kubadda cagta Somaliland inay halkaa iyo halkaa ku noqdaan ayaa ila qumanka kamaal ahaan horta dhinaca inkastoo dadka bini'aadankii markuu qofku mas'uul yahay inta badan dhaliisha necab yahay haddana anigu qofka meelaha aan ka qalloocanahay ii sheega kamaal ahaan waan soo dhaweeyaa waayo meelo fara badan baa laga yaabaa inaan anigu mas'uul ka ahay oo kala duwan meelahaasi kala duwan aan ka ahay mas'uulka qofka dhaliisheeda ii sheega waan soo dhaweeyaa laakiin in dhaliisha miidiyaha la imariyo anigu qudheedu ma jeclaysanayo laakiin qofku inuu xafiiska igu yimaado dhaliisheeda ii sheego dabeeto aan xaliyo haddii aan xalin waayo qofku miidiyaha ka sheego laakiin kulley kor iyo hoosba imanka jooga maanta xiriirka gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xogaaye nooca doonaba ha noqdaan markastoo chance ku helno dhaliilaha waan gudbiya waxyaabaha ku wanaagsan yihiinna waan u sheegaa marka dhaliilaha haddaynu mid iyo laba anigoon ku xumeynin waxba oo ay daacad iga tahay oo waxaa iyaga ka xumaada aniga iga xumaanaya waxaa kow ka ah
dhinaca sharciyadoo kale sharciyada u yaalla maanta xiriirka kubadda cagta ee tartamada lagu maamulaya dee lama jaan qaadayo. waxa tusaale kugu filan inaan ciyaartooya oo dembi sameeyey ayaa si loo ganaaxaya. ciyaarta ku xigta ayaa isla ciyaartooy kale wuxuu sameynayaa dembigii inankii shalay sameeyey mid la mid uu sameynaya, isagana waxaa lagu ganaaxaya ganaax aan kii ahayn. marka waxaa laga yaabaa inaan ciyaartooygeyga ah kooxdayda ah oo dembi sameeyey in 5 ciyaarood la ganaaxo, inaan ciyaartooy koox kale ka tirsan oo isla dembigan ka kooxdayda alla midana in la ganaaxo 8 ciyaarood. waana isku dembiyuun ama waa isku kiis. waa waxyaabaha keenaya in ciyaartooyda iyo kooxuhu mar kasta ay niyad jab ama xanaaq joogtaa ay keenaan. tababare ayaa qalad sameynaya, laba tababare oo kala wata laba kooxood baa qalad isku mid ay sameynayaan, midba miqyaas gaara la saaraya. waxyaabaha waxaa ka mid ah qaladaadka nagu soo noqday qof baa dembi sameynaya, waxay ganaaxayaan 5 ciyaarood. iyadoo 5 ciyaarood la ganaaxay ayaa oo media la soo dhigay ayaa waxaad ku warhelaysaa 3 ciyaarood kadib inankii ciyaartooyga ciyaaray. waad weydiinaysaa waxaad ku oranaysaa war ciyaartooy hebel 5 ciyaarood baa ayaa la ganaaxay, meel alla meel lagu soo bandhigay in wax laga daayina lama arage, maxaa dhacay? dee markaa waxay noqonaysaa in la yidhaahdo tiimkiiba dacwad soo gudbiyey, dabeeta hawshii si hoosaa loo dhimeeyey. dee waa in media la soo dhiga oo la yidhaahda cabdikhadar oo 5 ciyaarood la ganaaxay, ambiil bay qaateen, guddidii ambiilka 2 ciyaarood bay ka daayeen. sidii shalayba loo lahaa true cable aan uga daawanayay in 5 ciyaarood la ganaaxay, waa in true cable aan ka daawadaa in 2 ciyaarood laga daayay. tababarayaasha qudhood waa la mid oo tababaro intaa la ganaaxay oo haddana ganaaxi laga gaabiyey. dee iyadoo qofku ay guddidu xaq u leeyihiin haddana ay wixii feer noqdaan ayaa wanaagsan. dhinaca garsoorka oo kale waxaad arkaysaa garsoore hal koox u hayay 8 ama 9 ciyaarood ama 10 ciyaarood ba hayay. taasoo kale waxay ka imanaysaa kalsoonidii oo kale inay meesha ka baxdo. iyadoo ay jirto tababaro la-aan oo dee siminaaro badanna aan garsoorku qaadan, dhaqaalo badanna aanay haysan, oo dee markaad dhinac ka eegto waa niman masaakiina, dhaqaalo badan ma qaataan. nimankan ciyaaraya ciyaartooyga ka mushahar badan garsoorka, inan yaro ka mushahar badan oo ka orod badan oo ka hawl badan oo doonaya inuu wuxuu doono sameeyo ayaa de garsoor aan lacag badanna qaadanin, siminaar badanna aan haysanin la oonaya siidhigow hay aanu ismalihi cadaalad daro kooxeblaaya loogu hiilinaya inay jirto maanu taa ma aaminsanin. laakiin waxaa jirta aqoon yaraan baa jirta. marka dhinaca garsoorka kale in aqoontooda la kordhiyaa waa muhiim oo dadka dee waddanka jooga laga faa'iidaystaa waa soo dhaweyn lahaa. gudoomiye waxaad ka carabowday oo taabatay arrimo badan. dhinaca kale xiriirka kubadda cagta Somaliland markii ugu horeysay taariikhda waxaynu arki jirnay haddii Hargeysa Stadium ay 2 kooxood ku wada ciyaarayaan in garsoorka oo kale lala dagaalamo, garsoorka oo kale la eriyado, ciyaarta ay 2 kooxood ay isku laayaan. haddiiba ay ciqaab uga dhigeen ama ay inamadii sharcigii bareen, soo ma ahayn inaad ka gudoomiye lahaan iyo ka shakhsiyan adiguba aad soo dhaweysaan intaad leedahay sharcigii looma sinno? niyo anigu inta badan waxaan sameeyaa ciyaartooyda iyo koox baan ka ahay mas-uul. ciyaarta markaan daawado labadeeda macalin iyo ciyaartooydu ciyaaraha qaar bay ka cawdaan. inta aan cabashadooda geynin xiriirka iyagaan tusaa qaladkooda oon idhahdaa hebelka la ganaaxay ganaaxa uu qalmaa. waxaa laga yaabaa inta badan tababarayaasha ama guddoomiyaasha ama maamulada kooxaha kale ganaaxyaa ku dhaca. imika tiimka maaliyadda aan gacanta ku hayo 2 macalin weli ganaax kuma dhacay, ama ganaax ciyaarta lagaga saaro ama digniin la siinayo ama kaadh la siiyeyba ma jirto. inta badan waxaan ku idhahdaa marka ay cabasho keenaan ilaa aan iyaga soo saxo oo aan idhaahdo taa waa ku qaldanaydeen xiriirka uma cabasho tagaba. nimanka xiriirka jooga
inta badan waxaan ku dhiirigeliyaa in ay ganaaxyada adkeeyaan sababta aan u leeyahay in wixii loo sinaadaan wanaagsan inankii aan gacanta ku hayay markuu arko ciyaartooy hebel oo ganaaxii laga yareeyey iyo kii halkan joogay oo ganaaxiisii aan la taaban dee wuxuu dareemayaa inaan anu madaxa kaga taaganayn markaa sababta aan u leeyahay in wixii loo sinaadaa muhiima waa taa weeyaan waxaanan kuu sheegayaa markaan sheegayo dhaliilaha noocana ma lihiin nimankani dhaliil bay leeyihin wax weyn bay qabteen wax weyn bay wallahi qabteen waayo anigu 20 sane u dambeeyey ama aan ciyaaro ama aan maamulay bahasha ayaan gacanta ku hayay nimanka imika joogaa waxay ku dhiiradeen 30 sane wadanka la joogay waxay qaban kari waayeen ama ay ku dhiiran kari waayeen dadkii ka horeeyay ay qabteen 3 xuriyaal oo kala hooseeya ayaa wiiga dhan ciyaara wali waxaan ogahay anigu dhaqaalaha ay ku qaataan inuu yari ani markii ugu dambeysay gudoomiye ku-xigeenka mushaharkoogu 800 oo laana inaanu ka badnayn baan ogaada haddaan dabaday dee aan loo kordhin laakiin dee dadkii ka hooseeyay maxaad u malayn haddaanay dee shirkada aanay waxba ka helin nimankaasi dhaqaalo badanna meesha kuma qaataan waxaanan kuu sheegayaa markaan ciyaari jirnay maahee tartamadii naga dambeeyey oo dhan shabiga garoonka ciyaartooyda ciyaaraysa iyo ciidamada amniga ilaalinaya way isleekaan jireen hargeysa stadium haddaad tagto hal askari ma dhex taagna shabiga waxaa dhex taagan labada kooxood ee ciyaaraya iyo inta maamulaysa sababtaasi waxa weeyaan waa sharciyadii bay adkeeyeen sharciyadii maadaama ay adkeeyeen waxaa loo baahan yahay sharciyadda ay adkeeyeen in ay sharcigaasi noqdo sharci loo siman yahay oo aan ciyaartooyda qaarna lagu jiibsan macallimiinta iyo maamulka qaarna aan laga dabcin qaarna aan lagu adkaynin ee sharcigaasi ahaado sharci marka la soo saaro guddida dacwadaha loo daayo guddida dacwaduhu inay ahaadaan guddi madax bannaan kuwa ambiilku ahaadaan qaar madax bannaan oo markay go-aan soo saaraan go-aankaasi aanay cidi faragelin ee taan ka hadlaya waa taa weyn waa tahay waxaynu eegi doonaa sharciyada imika ka hadlaysay waxaa ka mid ah oo horyaalkana lagu arkay in ciyaartooyadii la ganaaxayo kulamo iyo lacag la isku raacinayo kooxaha qaarna badanka waxay ka cawdaan culayska dhaqaale ee ciyaartooyada la saaro ka gudoomiye kamaal ahaan iyada arrintaas aad u aragtaa waniyo anigu waxaan aad waxaan u jecelay ganaaxu hadduu yahay ganaax ay kooxdu mutaysatay ama naadiga kooxda ahaato ama ciyaartooyda ha ahaatee hadday mutaysteen ama lacag ha noqoto ama ciyaartooy la ganaaxaya ha noqotee in sida loo qaato waxa lagu kala socdaa waa sharci anigu gudoomiye waxaan ku hay sharci qadar jinaaliye fuaadna waxay ku yihiin gudoomiyaasha mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta waa sharci sharciga inay adkeeyaan oo ay cidda dembi samaysa ay ku adkeeyaan waa muhiim wax lagu kala socdaba tartankoogaas dhaliilaha soo baxaan laakiin inuu sida u qurux badnaado oo aan iyadoon ciidan ilaalinaynin oon bilis joogin inuu tartankii iska socdo waxa sababay waa sharciga dadka ay duldhigayaan kaasuna si adkeeyaanoo 30 kooxood iyo inta kale Somalilandba ha u sinaadaan taas ma muhiim waa tahay ka waran adeega caafimaad ee garoonka Hargeysa Stadium adeega caafimaadku dee waa u hooseeya oo dhinaca caafimaadka kale waxaan oran karaa kulli koox kastaaba qof bay wataan teamka u qaabilsan wixii emergency virus aad degdeg u baahan inuu ciyaartooyga siiyo marka talaha waxaan siin lahaa xiriirka kubadda cagta iyo waaxda ciyaarahaba inay ka codsadaan wasaaradda caafimaadka hal gaari oo ambalaas oo ambalaaska shidaalka iyo inanka darawalka iyo inanka neerska dhaqaalihiisa ee wasaaradda ciyaaraha iyo xiriirku iska kaashadaan wasaaradda caafimaadku intaasoo ambalaas bay leedahay haddii macal wasaaraddu ay bixin kari weydo isbitaalada bareefadka waxaa jira ambalaasyo bareefada oo la karaysto wiiga hadday karaystaan oo dhaqaale ay ugu talagalaan dee tartankana u qurux badnaysiinayaa inamada ciyaartooydana dee caafimaadkoogii
aad baa loo daryeelaya oo maanta inanka ciyaartooyga doobta ku noqoto dee waxay noqonaysaa gaari bareefod oo dhex yaal oo qof gaari wato dee in lagu qaado inta gaariga lagu sii sido waxaaba suurtagala dee in naftu ka baxdaba iyadoo dee ilaahay dee qadarka ilaahay meesha ay taalo marka waxaan rabnaa inaynu helno qof caafimaad oo professional oo waxaan aqoon gaar u leh oo inanku marka xaalad degdeg ku timaado oo naftiisa waxyaabahan kale jabitaanku waa sahalo qofku inuu ka jabo iyo inuu gacan ka jabo waa sahalo laakiin markay nafta gaadho ee qofkii ama inanka ciyaartooyga ama doobta ku noqoto ama carabka ku noqdaba ama wax naftiisii halis keliya ay ku timaado ileen ragba waxa weeyaan awood baa meeshii imanaysa kala duwan inaan helno qof isbitaalka gaarsiiya oo inta isbitaalkii garoonka u dhaxaysa si daryeela waa muhiim weeyaan waliba si degdeg ah u soo galaan oo aanay dib dhiganin aad bay wanaagsantahay waa tahay waan filayaa inay talooyinkaasi ay gaari doonaan xiriirka kubadda cagta Somaliland gudoomiye waxaan ku sii shaqeynaa gabagabadii barnaamijkeena ciyaaraha ee toddobaadkani xiriirka kubadda cagta Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay tartan ka hirgelinay gobolada dalka ayaa waxay shaaciyeen in berberi ay marti gelin doonto oo maayirka gobolka saaxil uu shaaciyay inay berberi marti gelin doonto Champions League Somaliland horta suurtagalnimo ma tahay in ay kooxaha heerka koobaad ee dalka oo dhan kooxaha ugu sareeya ama horyaalka qaada ay berberi iskugu tagaan oo ay ka soo dhex muuqdaan championkii Somaliland oo taariikhda markii ugu horeysay la qabto horta waxay ku xiran tahay hadba dadaalkay sameeyaan xiriirka kubadda cagta Somaliland sida ugu maqaalo ah November mise December koobka gobolada in la qabta la doonayay horyaalkan Hargeysa haddii September dhexdeeda la soo gabagabeeyo waxaan haysanaaba waa October iyo November waa 2 bilood Somaliland koobka gobolada waxaa loo qabtaa 14 gobol baan jeclay ilaa imikana 3 gobol ayba wax laga qabtay 11 gobol ee kale te marka tartamadii laga soo qabto ee 14 gobol oo tartamo loo soo qabtay kooxoog ay soo baxaan te markaas ma championka la qaban karayaa baan malinaya laakiin iyadoo goboladii qaar aan waxba loo qabanin in champion la qabto waxaan u maleynayaa inaanay taasi suurtagal ahayn marka haddii dadaal sameeyaan oo xiriirka kubadda cagtu dadaal bay ku jiraan oo har iyo habeen kama fariistaan oo habeenada qaar 10 hadda tagta xafiiskooda iyagoo shaqeynaya ku tigaysa oo marka qaar kood baan kula kaftaan ku raada haddaan 100 jeer bila camal noqon lahaa hawsha aad haysaan marna waxa weeyaan faraha lama soo galeen hal culus bay hayaan wayna dadaal badan way wadaan oo hayaan Allah u dhib yareeyay marka haddii 14 gobolba ay soo gabagabeeyaan champion way qaban karayaan laakiin suurtagal ma tahay su'aashu waxa weeyaan December oo koobka gobolada la qabanayo suurtagal ma tahay 11 gobol baa harsane inay ka gaarsiinayaan inay ka qabtaan tartamo kala duwan laakiin gudoomiye markii koobka championka adduunka la bilaabayba laguma wada bilaabin sidoo imika yahay haddii barbilow ay sameeyaan oo 3 gobol ama 4 gobol ay ka gaarsiiyaan soo bilow fiican uma noqonayo in champion la qabtay ka soo qaybgalkiisa haba la balaariyo marka dambe anagu Somaliland baan nahayo caalamka in badan bay soo jabeen oo waxaad arkaysaa xul qaran oo 3 ciyaartooy walaal ku jiraan anaga way adkaanaysaa maanta 5 ciyaartooy walaal iyagoo laacibiina in xul loo wada qaato sababta loo wada qaadin waa maxay duruufta la ilaalinayo iyo waaqaca la ilaalinayo marka iyadoo goboladii la ixtiraamayo oo haddii gobol laga tago xildhibaankiisii budka soo qaadanayo uu leeyahay gobolkayga maxaa wax looga qaban waayay taa qudheed waa caqabad ilaan caalamkaasi way soo jabeen hawl badan bay soo mareen waa dad la soo shiilay oo taariikh dheer soo maray laakiin anagu xilligan joogno gobolka aan wax laga qabanin markaba shir jiraayad baa la qabanaya waxaa leeyahay cadaalad darra dhacday marka haddii ay awooddaa leeyihiin oo ay leeyihiin intii gobol ee aan tartame ka gaarsiinay oo champion u qabananaa dee waan soo dhaweynayna oo dee waxaan u diidnaaba ma jirto haddii laakiin ay leeyihiin waanu ka gaarsiinaynaa iyo 14 gobolba tartamaan u qabananaa dee taasina ka sii fiican waa tahay gabagabadii barnaamijkeenaynu soo gaadhnay daawadayaasha iminka nagu soo biiray waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkani oo uu marti noogu yahay gudoomiyaha kooxda wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Kamaal Maxamed Yuusuf Kamaal talooyin badan hooga tusaaleyn badan
iyo dhaliilaba waad soo bandhigtay gabagabadii baynu ku jirnaa maxaad is leedahay halkan fariin uga reeb xiriirka kubadda cagta Somaliland iyo dhammaan bahda isboortiga ee ka qayb galaya horyaalada heerka kala duwan ee Somaliland horta walaal aad baad mahadsan tahay fariinta aan kaga tagaya ama talada aan kaga tagaya waxa weeyaan saddex uu kala qaadayo xiriirka kubadda cagta dadaal baad wadaan meel fiican waxaa idin marayaan wixii tartamada aad qabateen iyo barnaamijyadii quruxda badnaa aad soo bandhigteen wixii dhaliila idinkaga soo noqday inaad intaad shirar badan ka yeelataan aad sixitaan samaysaan fulogada gala hadduu la haraado anaguna waad garab taagani kooxaha ciyaartoyda iyo mas-uuliyiintooda iyagana fariin baan fari lahaa waxaan leeyahay guddoomiyayaasha iyo tababarayaasha kooxaha kala duwan garoomada aynu keenno ciyaartooy kubaddooda iyo akhlaaqdoodaba dadka daawanaya farax gelisa dibadda dad qurba jooga waddanka jooga live baa ciyaaraha loo daawanaya meel kasta laga daawanayaa haddii maalin kasta la arko laba kooxood oo loo hanweynaa oo ciyaartooydoodii ay dagaalamayaan tababarayaashoodii ay waxay doonaan sameynayaan guddoomiyaashoodii ay budka qaadanayaan dadku way naga dhiyajabayaan marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta kooxaha kala duwan garoomada aynu keenno ciyaartooy iyo kooxo marka la daawanayo dadka farax geliya inamada ciyaartooydana waxaan leeyahay kubadda cagtu way dhammaataa laakiin mid baan dhammaan labaan dhammaan waa sharafta iyo aqoonta inaad fulogada gashaan inta aad kubadda ku guda jirtaan inaad sharaftaada ilaashato oo maalinta aad ka baxdo saaxadda kubadda la yidhaahdo hebel oo koox hebel u ciyaarayay intii uu ciyaartooyga ahaa nin wuxuu ahaa laaciba sharaf badan akhlaaq u ciyaara maalinta aad ka baxdana waa inaad ka baxdaa adigoo aqoon lade ama aqoon maadi ha ahaato ama aqoon diinad ha ahaato aada noqotaa nin aqoontiisa gaarkaa de ku shaqo taga marka inaad isku kaabtaan oo isku ilaalisaan aqoonta waxbarasho iyo akhlaaqda iyo cibaadada saddexda haddaas waafajisaan dee if iyo aakhira waad guulaysanaysaa intaa ayaan hawada u marinayaa ganacsatada waxaan kusoo gabagabeynaya iyo hay-adaha kala duwana dowladda inay sportska fahmaan oo ay dhaqaalo geliyaan wadamada jaarka shirkadaha iyo dowladaha gacanta ku haya ayaa dhaqaalo geliya inaad kooxaha aad mas-uulka ka tihiin aada dhiirigelisaan oo hadday mushahar tahay iyo hadday gunno tahay iyo hadday dareyska aad u iibinaysaan tahayba inaad maal gelisaan baa la doonaya shirkadahana waxaan leeyahay xayeysiiska aad ku bixisaan meelaha kala duwan inaan ciyaartooya oo reer Somaliland oo magacaaga laabta ku qorta ayaa meel kasta laga arkaya oo meel kasta xayeysiis u noqonaya idinku inaad maal gelisaan ku dadaala aad baa mahadsantahay waa tahay daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii toddobaadka iyo faaqidaada ciyaaraha oo aad si toosa uga daawanaysaan shaashada True Cable Sports waxaana toddobaadkani marti noogu ahaa guddoomiyaha Kamaal Maxamed Yuusuf Kamaal aad baad mahadsantahay